Video editing ama muuqaal samayn waa xirfad kamid ah xirfadaha ugu caansan caalamka kuwaas oo iminka dadka ugu badani ay ku shaqeystaan adigoo uga shaqeysan kara hab online ah iyo waliba hab offline ah oo shaqo caadi ah haddaba waxaad doonaysaa inaad bilowdo iminka hadaba muuqaal samayntii ama hore ayaad u dhigatay waxaad rabtaa inaad mar labaad dib u dhigato muuqaalkani wuxuu ku saabsan yahay Adobe Premiere Pro taasoo laga soo bilaabi doono bilowga insha Allah ilaa aynu isku dayi doono rendering inaynu gaano muddo 12 minute gudahooda fadlan dhamayso muuqaalka like saar share furo belka notification ka si ay ku soo gaaraan muuqaalada dambe ama casharrada dambe aan soo gelin doona aynu bilaabano muuqaalka minutes ka soo socda waxaynu isku dayi doonaa inaynu focus ka saarno Adobe Premiere Pro guud ahaan Adobe Premiere Pro markaad soo gasho waxay u egtay sidan waxay u qaybsantaa daaqadaha kala duwan panelska kala duwan sidoo kale qaybta sare waxa la dhahaa workspaces waa halka guri hadii xaafad loo xisaabiyo waa halka wax kasta ku sii dhex jiraan imka editingka intana panelka ku jirta laakiin waxa laga yaabaa marka audio-ga la joogo panelska editingka ku jira qaar kood inaanay ku jirin qaar kalena ay ku soo biireen sidaan halka ka aragno aan editkeena ku soo noqono editkeena baan imika joognaa editka marka la timaado waxaad arki kartaa horta daaqadahan koobaad wax la yiraahdo program monitor waliba waxa weeyaan barta muuqaalkaaga markaad edit gareynayso aad ka daawanaysaa bartan weeye marka aad muuqaalkaaga edit gareynayso jarjarayso halka aad ku jarjaraysaana bartan weeyaan bartu ka soo muuqanayaana halkan weeyaan halkani waa halka aad ka soo import gareynayso muuqaalka aad jarjarayso bartan waxyaalaha ku jira waxa kamid ah effect controlski taasi oo ah meesha aad ka maamuleysay shaygan transformation kiisa ama scale ku yeelanayo position kala dhigayo iyo waliba rotation ku yeelanayo barta laga maamulayay qaybtaada haddaba saynu u soo important u sameeyno wax soo gelino saynu balardo meesha si action oo aragno double click baan bartan siinayna ama right click si import marka dhahdo waxaan soo gashan doonaa muuqaalo waxaan soo gashanaynaa 3 muuqaal ayaynu soo gelinaynaa okay marka video sidoo kale cod baynu soo gashanaynaa right click baan barta mar labaad siinaynaa import baynu oranaynaa waxaan tageynaa meel aynu soo dhiganay codka imika waxaan soo gashanay muuqaaladii iyo codadkii marka koowaad marka muuqaal iyo codad soo gashato si aad horta halkan u soo waaweynaysto waxaad samayn kartaa bartanaad ku dhufan kartaa icon view baad ka dhiganaysaa kuwaas waxaad aragtaa inay muuqaal inoo yihiin waxa ka hooseeyana cod yihiin marka waxaad samaysaa list view inooga celiyo imika waxaad samaysaa waxaad isku daydaa markasta inaad organizing-ka aad u samayso oo wixii muuqaalana folder ku rido wixii video codana folder ku rido marka imika inta codka aynu folder ku ridayna inta muuqaalka waa inta horta videos iyaga select garee soo jiid halka ku sii daa hadii kale si fudud folderkan ku dhufo waxaan la baxaynaa videos marka la joogo Premiere Pro folderka waxa loo yaqaanaa bin marka maanta ka bacdi marka aad folder sameynayso in Premiere Pro waxaad oranaysaa waxa aan sameynayaa binka ku dhufo ka bacdi waxaan ku qoraynaa kana music ama zone base ka qoraynaaba okay inta muuqaalada select garee inta ka koobaad select gareyso shift qabo kana la select garee cheat videoska ku dhex calaamadda ay raadey hoos u jeedo waad arki kartaa videoska hadii laakiin si saan u jeedo waxay ka dhigantay way qarsoon yihiin ama toggling baa lagu sameeyay marka codkana ka qabo shift qabo kan la select garee soo jiid soundka dhex gali marka videoskina gaar bay ku jiraan soundkina gaar bay ku jiraan aynu hadaba intaanaynu soo import gareynay balgeena timeline qaybta timeline ka aynu geeyno videoska kaalay waxaan rabnaa inaan soo gashano saddexdooda select garee hadda hal xabad doonayso horta kaas soo select gareynaysaa halkaas ku sii deynaysaa marka select gareysato aad sii deyso wax la yiraahdo sequence ayaa ku soo biiraya sequence-gu wuxuu ku fududeynayaa in aad meeshii ma garanaysaa editing ku sameeyso
sequence-ga laba qaab oo loo sameeyaa in mar muuqaalkii aad soo qaadnay oo sidan aynu imika sameynay uu sameysmo automatic sida ugu fudud ee loo isticmaalana waa sida laakiin haddii aad u baahato inaad sameysto mid cusub right click button siinaysaa new item sequence kabacdi sequence markaad timaado halkan waxaad ka dooran doontaa folderka ee RRI ay ku qoran tahay 1080p marka hore ishaayir ku dhufo baadi barta oo kale halkaas soo dooran doontaa okay baad leedahay magac baad ula soo baxaysaa saas kugu furmaya intaas waa haddaad sameysanayso sequence cusub imika halkan waxay noogu soo biiray sequence cusub ayay noo soo galay soo kale waxaa jira wax loo yaqaano source monitor halkan waa program monitor baynu ku yidhi oo waxaynu ka soo muuqanay video-gaynu ka edit garaynayno timeline waxa jira haddii aad doonayso imika kale inaad aragto muuqaalka intaanad edit-ka geynin waxaad samayn kartaa wax la yidhaahdo source monitor double click baan siinaya muuqaalkan doonayo kabacdi waxaad aragtaa inuu bartani ka soo muuqday waxaynu sameynaynaa haddaba haddaan rabo inaan muuqaalkan sii daawado calaamadda playdan ku dhufanayaa amaba space bar kabacdi waxaad arki kartaa inuu muuqaalkii noo socdo laakiin se bartan haddii aan mar labaad muuqaalka la double click siiyo way isbedelaysaa haddii laakiin se halkan si kastaan muuqaalka aan joogay ku xidhan tahay halkaasaan joogaa kaasuu taagnaanaya okay haddaba aynu bilaabno trimming-ka ama toolska aynu wax ka isticmaalno bal sida razor toolka ama cutting-ka waxaynu u isticmaalayno markaad halkan joogto waxaad soo qaadan kartaa razor tool kabacdi bartaas ku dhufan kartaa halkaa aad joogtaa laga kala jaraya meel kastoo aad ku dhufato uu jaraya intaa aynu jarnay ayaad highlight garaynaysaa delete marka okay iminka markaan laba muuqaal oo kale soo gashanaynaa labada muuqaal kana select garee kana select garee soo jiid bartaas oo kale soo dhigo iminka saddex muuqaal baynu soo gashanay okay haddaba haddii muuqaalku waxaynu ku sheegay sequence marka hadduu sequence-gaaga ka yaraado muuqaalku double click right click si waxaad tiraahdaa scale to frame size hadduu kan kale saa ugu weynaado kana uu ka weyn yahay marka right click si waxaad tiraahdaa scale to frame size intaasi waa intaad uga baahan tahay Premiere Pro inaad ka ogaato marka koobaad marka imika waxaan isku dayi doonaa inaynu codka ka saarno bal saddexda muuqaal baa soo highlight garee right click si unlink dhe inta hoose select garee codka delete iska dhe waxaan soo gashan doonaa music zone effect aan soo gashan doonaa zone effect-ga kan maadaama yahay meel kayna shimbireen soo gashanaynaa okay halkan kaalay aan bilinaa sidoo kale waxaan soo gashan doonaa music-ga okay hore u yara soco ilaa halka kaalay soo qaado toolkaagii barta ka jarkan okay selection toolka dooro iska delete garee kan soo qabo biyihii kana maadaama biyihiin waxaan soo gashan doonaa cod biya sidoo kale codkii shimbirahana barta isaguna waa inaynu rahnaa soo qabo razor toolka barta ka jar selection toolkaaga soo qaado iska delete garee kii gaadhigana soo qaad bartaas kale noo soo dhig razor toolkii doono barta ka jarkan selection toolka sidoo kale razor toolka ku noqo codkiina barta ku jooji isagana barta aad muuqaal ku joojisay codkana ku jooji delete kana delete soo qaad kan barta inoo soo dhig halkan markaan soo dhigano cod gaadhi baan soo qaadanaynaa oo ina dhaafaya isagana inta hore waxaad moodaa inay bannaan tahay waxaan sameynaynaa razor toolkan soo qaadanaynaa inta yare hore dheer ayaynu ka jaraynaa delete taabo
bartaa isagana inoogu xidh aynu isagana eegno وكا control plus S was safe ويان okay عدك هالكن كحد كنا برتن كحد هدين برتا اجنو برتا سكو جوجا marka waxa filayay inaad fahanteen 10ka guud ahaan inta waxaynu ku focus gareynay ama aynu ku sharaxaynay Adobe Premiere Pro haddii aad u baahan tahay course-kan oo aad u faahfaahsan casharadiisuna dhameystiran yihiin waxaad ka heli kartaa tix.com ama website-keega ayaad heli kartaa course-kan dhowr iyo 10 saacadood ah focus gareynaya animations badan waxyaalo badan aad ku baran doonto haddaba maadaama oo aynu muuqaalkii soo wadnay soo import gareynay programkii furnay soo sharaxnay soo fahanay bal aynu isku dayno inaynu muuqaalkeenan bal export gareyno kana soo saarno muuqaal qof kasta daawan karo iminka qofka muuqaalkan daawan kara waa qof project-kii Premiere Pro haysto oo kaliya laakiin muuqaalkan import gareyno sida kan aad daawanayso oo kale qof kasta daawan kara oo meel kasta la gelin kara social media kala duwan haddaba si aad u import gareyso waxaan tegaynaa file kabacdi export kabacdi media markaanu tagno waxaad arki kartaa inuu setting-ka inoo soo baxay marka koobaad halka ay ku qorantay format waa inaad ka dhigataa h.264 halkan preset ku qorantahay waxa taabanaysa kaliya match source high bitrate output for name kana ku dhufo si lagu geeyo position-ka lagu dhigayo muuqaalka kabacdi waxaan leenahay bartaaba noo dhig magacana forestiga noogu qoradeen doono magaca kale ku qoran karnaa save binary halkan waxaan ka arki karnaa biyada soo kale labada sax waa inuu ku saarnaa export video iyo export audio aan niraahno export markuu muuqaalku export garoobo waxa uu soo saari doonaa xaggii hore ayuu kugu celinayaa aynu daawanaa muuqaalkeenu export gareynay muuqaalkii bartaano dhiganay waa halkan aan bale yiraahdo waka muuqaalkeeni dabadeed rabteen aad dhigato course-kan waxa uu kugu diyaarsan yahay tix.com fadlan ka faa'iideyso lana wadaag dadka kale si ay uga faa'iideystaan iyaguna aad iyo aad baad ugu mahadsantahay daawashada muuqaalkan weynooyo muuqaalkan iyo muuqaalka xiga waxaan isku arki doonaa insha Allah taala muuqaalada xiga